رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد البر ayaa tallaab degdeg ah waxa uu ka qaadayaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka diinta oo qaabta arrimaha islaamka xukuumadda Soomaaliya Muqtaar Roobo Cali Abu Mansuur iyo sargaal ka tirsan dowladda Soomaaliya oo labadooduba cabasho degdeg ah ay ka soo gudbiyeen labadan gabdhood ee idin muuqdo oo xalay kulankii dadweyne ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre runtii soo bandhigay waxa calooshooda ku jiro labadan gabar midda wasaaradda oo qaabta arrimaha islaamka ka cabanaysa waxa lagu magacaabaa Amal Garaad wasaaradda ayay sheegtay inay ka tirsan tahay muddo 4 sano ah wax mushaarana aysan helin sanad kastana wasiirka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ay u sheegaan in xuquuqaadkeeda la siin doono laakiin aysan jirin arintaas baraha bulshada ku soo daabacday sidoo kale gabadhan sargaal ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa cabasho ka tahay waxa ayna sheegtay in mararka qaarkood ay guriga ku dhaxooyso oo cabasho nooc ugu dambeysay wajahayso waan soo gudbin doonaa kulankii dadweynaha xalay Ra'iisul Xamza Cabdi Barre iyo waxyaabihii muhiimka ah oo kaga hadlay muuqaalka Lexar halkan ku soo biirsi doosho macluumaad ay waran fanaan ku bilowdo Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre ayaa xalay dhiiranaan iska dayay waxa uu hortagay dadweyne ka tirsan shacabka Soomaaliyeed su'aalo daafuran oo muhiim ah ayayna bulshada Soomaaliyeed ay weydiiyeen Ra'iisul Wasaaruhu su'aalaha badi oo filanaya waxay ahayd su'aalo ku saabsan arrimaha siyaasadda Soomaaliya laakiin dad ciishoon oo qalbiga iyo caloosha ka gubanaya ayaa halkaas ka soo baxay Amal Garaad oo ah gabadhan idin muuqata Xamza Barre ayaa waxa ay u sheegtay cabashadeeda waxa uu ka dalbaday xafiiskiisa in si degdeg ah maanta loogu geeyo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee madaxtooyada ku dhex yaala waxa uu sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu sidaan xog ku helayno isaguna u yeeray mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda oo qaabto bismillaah magacaygu waa Amal Cabdullaahi Cumar Amal Garaad marka hore waxaan weydiinayaa Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxaa jira cabasho in badan oo soo qoray Facebook-ga waxaan ka cabanayaa wasiirka diinta oo qaabta wasaaradda agaasimaha guud iyo wasiirka waxay mar walba sameeyaan dad ku heebaya shaqaaleysiiyaan taasi anina in badan ma shaqaalku gaar ka ahay warqad guud abshiro waa haystaa mudane taasi maxaa kaaga qabsoomay kulba soo garta umana arintaas away gabadhi walaasheed gabadhaas walaasha ay sheeganaysa xafiiskayga waxaan rabaa gabadhaas in bari la ii keeno hadii ilaahay way aad baad u mahadsantiin haddii gabadhan kale waxay ka cabanaysaa sargaal ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in dhibaato baan uu ku hayo mararka qaarkood guriga iskaga dhex oyso cabashadeeda ayaa markay istaagtay Wasaaruhu u gudbisay isaguna mar kale wuxuu codsaday in xafiiskiisa lagu geeyo labadan gabdhood ayaa maanta xafiiska Ra'iisul Wasaaraha tagaya waxa ayna sidoo kale la kulmayaan Ra'iisul Wasaaraha cabashadooda ayuuna halkaas ku xalinayaa talabaad mudane Ra'iisul Wasaare waxaan cabasho ka ahay sargaal dowladda Soomaaliya ka tirsan waan awooday inaan miidiyaha tago waxna aan soo gudbiyo waan awooday laakiin madaxda qaranka inaan xushmeeyo ayaan jecelahay saas aawadeeda igu kaliftay inaan guriga aan seexdo kana dhex ooyo cabashadeydana aan soo gudbi waayay mudane Ra'iisul Wasaare cabashada walaasheen ay sargaalka ka sheekanayso waxaan rabaa in sargaalkaas laga soo qoro hara la ii keeno sargaalkaas iyo gabadhaasba way marka waa in cabashadeeda la xaliyaa waa intaas tahay gabdhahan waxay tusaale u noqon karaan gabdhaha Soomaaliyeed wiilasha dhalinyarada ah iyo qof kasta oo ku dulman hay'adaha dowladda Soomaaliya in cabashada ay qabaan ee madaxdooda ay la wadaagaan oo aysan ka cabsan oo ayna soo bandhigaan runtii Xamza Cabdi Barre xalay su'aalihii uu ka jawaabay waxa ka mid ahayd arrin laga weydiiyay musharaxnimadiisa iyo in uu diiday inuu musharax la noqdo madaxweynihii isaga soo magacaabay Ra'iisul Wasaaraha ka dhigay maqaamka uu maanta joogana oo uu yeelay bal ila daawada Ra'iisul Wasaaraha arrimahaas ka hadlaya inaad sharaxdo ma laga yaabaa Ra'iisul Wasaare sida looga bartay taas meesha ku dhamaa waa su'aal muhiim ah runtii kaliya ima weydiisid Yuusuf Soomaalidu waxay u baratay oo iska mar walba oo iska sameeyaan anigu waxa laga yaabaa in dhaqan ahaan inaan ka duwanahay dad badan say rabtaba ku timaado aniga madaxweynihii i magacaabay isla ma sharaxayo dadkoo dhan waa u sheegaa oo iska caddahay taas hadduu asagu iska daayo ma aqaan waxa samayn doono laakiin inta madaxweynihii fursadda ii siiyey inaan caawa idin hor fadhiyo dadka Soomaaliyeed i baray fursad ii siiyey inaan dalkayga u shaqeeyo wax u qabto
inta soo garab fadhiisto islama sharaxay. taas inaan kuu sheego waa aad iyo aad muhiim u tahay, mana qarsado, waana sax, waana dhacaysaa mabda'aygaa sidaas. dhalinyarada saan sheegay dee dhalinyaradu wadan walba waa xooggiisa, waxay inoogu jiraan markaan dhaqaalaheena tirsanayno xoolaheena sheegayno nool dhahna 40 milyan oo xoolo aan leenahay oo nool, oo aan dhahno 8 milyan oo hektaar baan haysanaa, oo 3,336 bad dheeraaran kilomitrisaan haysanaa, oo 30 bilyan oo barrel ama maxaan ku dhahaa foosto oo lagu qadaray oo oil and naftan wadankeena noogu jira. markaan intaa leenahay waxaan ku darnaa 70% oo dhalinyaro ah oo xoog lena waa haysanaa. sidaa darteed dhallinyaradeenu waa cunsur muhiim ah oo dhaqaalaha dalka ka mid ah oo hogaaminaya. haddaynaan ayaga aynaan tanmiyeyn oo aynaan dhisinna dalkani transformation. sidaas darteed waxaan transformationka u sameynayaan dalkan u bedelayno, waxaan rabnaa in dhallinyaradu ay kiciso dalka. caawa dhan waxaan ka sheekeynaya waxbarashada dadkan Soomaaliyeed. dowladdaa siin jirtay soo maha, way iibin jirtay, maxay siin jirtay? sidee dhulka loo gadaa? sharciga dhulka lagu gadaa muxuu sheegayaa? sharciga dadka dhulka lagu siiyaa muxuu sheegaya? in la xaysiimu sheegaya? ra-iisul wasaare, dadka Soomaaliyeed ma diidana in Muqdisho ay bilicdeedii soo noqoto, magaaladuna ay noqoto nadiif. waliba waxay ogol yihiin in ay bixiyaan khidmada dawladdu ay ka rabto. laakiin caqabadaha yimid waxay tahay kow, dhulalkii dawladda, dhulalkii ku dhowaa ayay noqotay dadkii idinku aad siiseen dhulalkaasi horta inay ku darsadaan. waa midda koowaad caqabadaha taagan ka mid tahay. labo, dawladdu waxay ahayd inay qiimeyso baahida hadba dhulka meeshuu ku yaalo iyo dadka degan, awoodooda intay la egtaana la fiiriya, haddii ay bixin karaan khidmadda iyo inta khidmaddu ay la egtaana waxay dawladdu inay u naxariiso dadka shacabka ay mas-uuliyadda ka saaranta. ma dhicin sida muuqata. saddex, shacabku weli maanay arkin daahfurnaan la xiriirta hanaankan iibinta dhulalkii dawladda oo ama loo tartamay ama ay ku caddahay qarashkii ka soo baxay khasnadihii dawladda inay gasho. miyaad leedahay waxaa soo dhan ra-iisul wasaare? cabdullaahi, adigu xisaabihiina ma tihid, hanti dhowrihiina ma tihid. marka hadalkaaga waxaan u qaadanayaa nadari, waa theory. marka waxaan rabaa inaad u tagto hay-adahaas, maxaa sharcigaa lagu xadgudbay, maxaa lagu xadgudbay. ani waxaad igala hadashaa sharci ma lagu xadgudbay? wax sharci laguma xadgudbin aan leedahay. haddii la ii sheego sharciga lagu xadgudbo waan toosinaynaa. ma la haysiiyo dhulkan oo radio Muqdisho warbaahinta ma laga sii daayo? waxaan rabaa haddii la iibinayo su-aalahaaga waxay u baahan yihiin inay ku dhisan yihiin dhulka. markii shalay dhulkaan oo dhan dadkan Soomaaliyeed dawladdaa siin jirtay soo maha, way iibin jirtay, maxay siin jirtay? sidee dhulka loo gadaa? sharciga dhulka lagu gadaa muxuu sheegayaa? sharciga dadka dhulka lagu siiyaa muxuu sheegaya? in la xaysiimu sheegaya? haddii dawladdu ay ka maarantay oo ay rabto inay iibiso ganacsatana siinayso, daahfurnaanay u baahan yihiin in loo tartamo. waxaan rabaa hal su-aal baan ku weydiinayaa. dhulka sharciga dhulka ee sheegaya dhulka in la xaysiiyaan kaan rabaa. marka ma jiraad leedahaaba adigu? xaggee yaallaa itus? waa maasanta. waay arrinta ku saabsan dhulalka ku dhow dhulalka dawladda ma hubisaan? dhulka eeg, qof Soomaaliyeed dhulkiis laguma xadgudbi karo. dhul sharciga qof Soomaaliyeed leeyahay in lagu xadgudbaa waa qalad. haddii lagu xadgudbana meel loo dacwooduu leeyahay, hay-aduhu leeyahay, qofku wuu dacwoonaya. maxkamadaheena wada ogtihiin, sumcad bay leeyihin, hadda waa fiican yihiin. qofku wuu dacwoon karaa. haddii dhulkiisa lagu xadgudbo lama aqbali karo. qof Soomaaliyeed dhulkiisa lagu xadgudbo isagaaba leeyahay. dawladdu haddaysan lahayn oo qof uu leeyahay, dawladdu kuma xadgudbi karto, qofna ma siin karto. haddii qof inta dhul la siiyey uu dhul dad kale ku darsado waa dembiile. de qof dembiilaan si loola dhaqmaa la yaqaanaa. waa in xoolaha laga qaadaa. ma daba gashaan adigu? ma ku daba gashaan dadka aad dhulka siisaan? dadkii away laga qaaday. maalin kastay warbaahinta ka hadlaan ee ka cawdaan, miyaadan arkin ra-iisul wasaare? ma hubtaa? ayagaa sheegayo caddaynaya dukumiinti. maxkamadaha ma u tageen? way tageen. hadday maxkamadaha geysteen waa la xalinaa.
way waa inay dacwad qaataan. way dadkan Soomaaliyeed dowladda siin jirtay soo ma way iibin jirtay maxay siin jirtay dhulka loo gadaa sharciga dhulka lagu gadaa muxuu sheegayaa sharciga dadka dhulka lagu siiyaa muxuu sheegayaa in la xaysiimo sheegayaa ra'iisul wasaare dadka Soomaaliyeed ma diidana in Muqdisho ay bilicdeedii soo noqoto magaaladuna ay noqoto nadiif waliba waxay ogol yihiin in ay bixiyaan khidmada dawladdu ay ka rabto laakiin caqabadaha yimid waxay tahay koow dhulalkii dawladda dhulalkii ku dhawaa ayay noqotay dadkii idinku aad siiseen dhulalkaas horta inay ku darsadaan waa midda koowaad caqabadaha taagan ka mid labo dawladdu waxay ahayd inay qiimeyso baahida hadba dhulka meeshuu ku yaalo iyo dadka degan awoodooda intay la egtaana la fiiriyo haddii ay bixin karaan khidmadda iyo inta khidmaddu ay la egtaana waxay dawladdu inay u naxariiso dadka shacabka ee mas-uuliyadda ka saaranta iyadii ma dhicin sida muuqata saddex shacabku weli maanay arkin daahfurnaan la xiriirta hanaankan iibinta dhulalkii dawladda oo ama loo tartamay ama ay ku caddahay qarashkii ka soo baxay khasnadihii dawladda inay gasho miyaad ma jiraan miyaad leedahay waxaasi oo dhan ra'iisul wasaare Cabdullaahi adigu xisaabihiina ma tihid hanti dhowrihiina ma tihid marka hadalkaaga waxaan u qaadanayaa nadari waa theory marka waxaan rabaa inaad u tagto hay-adahaas maxaa sharciga lagu xadgudbay maxaa lagu xadgudbay ana waxaad igala hadashaa sharci ma lagu xadgudbay wax sharci lagu xadgudbin aan leedahay haddii la ii sheego sharciga lagu xadgudbay waan toosinaynaa ma la haysiyo dhulkan oo radio Muqdisho warbaahinta ma laga sii daayay waxaan rabaa haddii la iibinayo su'aalahaaga waxay u baahan yihiin inay ku dhisan yihiin dhulka markii shalay dhulkaan oo dhan dadkan Soomaaliyeed dawladda siin jirtay soo ma way iibin jirtay maxay siin jirtay dhulka loo gadaa sharciga dhulka lagu gadaa muxuu sheegayaa sharciga dadka dhulka lagu siiyaa muxuu sheegayaa in la xaysiimo sheegayaa haddii dawladdu ay ka maarantay oo ay rabto inay iibiso ganacsatada siinayso daahfurnaanay u baahan yihiin in loo tartamo waxaan rabaa hal su'aal baan ku weydiinayaa dhulka sharciga dhulka ee sheegaya dhulka in la xaysiiyaan ka rabaa marka ma jiraad leedahay adigu xagee yaala itus waa maasanta way arrinta ku saabsan dhulalka ku dhow dhulalka dawladda ma hubisaan dhulka eeg qof Soomaaliyeed dhulkiis laguma xadgudbi karo dhul sharciga qof Soomaaliyeed leeyahay in lagu xadgudbaa waa qalad haddii lagu xadgudbana meel loo dacwoodu leeyahay hay-aduhu leeyahay qofku wuu dacwoonaya maxkamadaheena wada ogtihiin sumcad bay leeyihin hadda waa fiican yihiin qofku wuu dacwoon karaa haddii dhulkiisa lagu xadgudbo lama aqbali karo qof Soomaaliyeed dhulkiisa lagu xadgudbo isagaaba leh dawladdu haddaysan lahayn oo qof uu leeyahay dawladdu kuma xadgudbi karto qofna ma siin karto haddii qof inta dhul la siiyey uu dhul dad kale ku darsado waa dambiile de qof dambiilaan si loola dhaqmaa la yaqaanaa waa in xoolaha laga qaadaa ma daba gashaan adigu ma ku daba gashaan dadka aad dhulka siisaan dadkii away laga qaaday maalin kastay warbaahinta ka hadlaan ka cawdaan miyaadan arkin ra'iisul ma hubtaa ayagaa sheegayo caddeynaya dukumiintiyada maxkamadaha ma u tageen geysteen way tageen hadday maxkamadaha geysteen waa la xalinaa way waa inay dacwad qaataan way geysto oo mararka qaar loo tanaasulo wixii suurtagal ah ceeb ma keenayso waxaanan aaminsanahay marka ugu dambaysa waxay noqonaysaa inaynu isu nimaadno marka inaan dadkeenna aruursanaa ka fiican inaan kala fiijino marka waynu iswadwadanaynaa odayeyntu marka muhiim waaye laakiin waxaan kula qabaa hay-adaha sida baarlamaanka ayagaa iska leh annagoo arrimo siyaasadeed waa horgeyn karnaa laakiin go-aanka ayagaa iska leh dastuurka wax ka bedelkiisa baarlamaanka iska leh annaku ma lihin marka taasna waa intaas cabdullaahi uu mahadsan yahay sanduuqu zakaad zakada waxaa waaye waxaan samaynay xeer baarlamaanku la yaalaa waxaan rajaynaynaa ilahay idankiisa inay baarlamaanku ansixiyaan si ay dadka Soomaaliyeed zakooyinkooda ay ugu bixiyaan hay-adda kale dabcan awqaaftana waa soo wadnaa laakiin hadda waxaa noo horeysa laba arrimood oo ah midkii majliska islaamiga ee fatwada la rabo inay culimada Soomaaliyeed isu keeno iyo sharciga kale ee ah sharciga sanduuqa zakada marka labadaba baarlamaanka ay la jiraan waxaan rajaynaynaa inay ansixiyaan wax badan bayna ka tarayaan dalkan haddii ilaahay yiraahdo
دكتور سحنا تضبيه كنتن يتضبا urur siyaasadeed weeye hadda xisbi weli ma gaarin laba siba wax lagu sameeyaa in wax la yiraahdo threshold afka kulli qalaad lagu yiraahdo in la maro oo la yiraahdo xisbigii intaas oo cod haysta ayaa xisbi qaran noqonaya ama in la yiraahdo saddexdii xisbi ee ugu sareysa saddex xisbi qaran noqonaysa laakiin waxa lagu kala baxay waa doorashada localka ah horta waa in la gala marka taas la gali kadibna waa la kala bixi doonaa insha Allah hadii ay afarta su'aal ahay markaan u laaban doonaa laakiin su'aalaan rabnaa inaan dhex gelin bishan bilowgeedii dawladdu waxay dhaqan gelisay e-visa in fiisaha si online ah dadku ay ku jirtaan qof kasta oo Soomaali imaanaya Puntland iyo Somaliland waa diideen oo nama qusaysay dhaheen cabashada soo yeertana waxay tahay in dadkii laba lacag looga qaadayo dhulkii Soomaaliyeed oo qofkii markii uu dawladii u shuba lacag Hargeysa haduu ka dago lacag kale laga rabo ama Puntland uu ka dago lacag kale laga rabo cabashada jirta ma ku soo gaartay muxuu yahay qorsheynaan ku aadan arintan e-visa marayna istaagaa fansash waa ma santahay Cabdullaahi adda cabashadu iska badnaan jirtay tan wabiyar culustaay malaha kuwa ka yar ayay cabashadu ka jirtay marka Puntland iyo Somaliland dabcan isku case ma ahaan jirin laakiin si guud dadkoo dhan waxay og yihiin dawladda Soomaaliya ee federaalka ayaa matashay ummadan Soomaaliyeed ayada ayaa iska leh oo dastuurkuna siinaya xuduudaha laga soo galo iyo immigration kasiisa dawladda federaalka iska leh dastuurkeena ku qoran tahay mar haday sidaas tahay marka cidii ku haysatay horta waa cid iyadii dastuurku ay haystaan ay dastuurka soo heshiyaan waa qodobka labaad arrintaani fududays iyo dhinaca amniga inaan adduunka la jaan qaadno ayay ka mid tahay maana ugu talagelin annagu laba lacagood in laga qaado laakiin lacagta caadiga ee dunida oo dhan qaado in la qaado un bay ujeedku yahay hadday caqabada soo baxaan noocaas waxaan u baahannahay inaan ka wada hadallo dadka intaan waan diidnay waxba dhihin laakiin dawladda federaalka waxaan rabnaa in lagala hadlo in aan anaguna kala hadallo annaga iyo ayaga inaan ka heshino oo aan arrintaas ayadaa aysan muran gelin arrintaas saan sheegay dawladda iska leh dawladda federaalkana iska leh sidaasayna u aragtay awalna haddee Somaliland iyadoo kayskeedu gaar waay Puntlandna waxaan rajaynaynaa ugu dambaysta xaqiiqada imaanaysa waana isla fahmaynaa hadii la yiraahdo marka waa ka gudbayaa taas intaas ka badan marka Somaliland iyo wada hadal aad rabtaa inaad kala gashaan arrinta sideedaba wax walba wada hadal baan ku dhameynaa mashaariicdu wada hadal bay ku shaqeysaa wada hadal iyo soo dhaweyn iyo soo jiid ay dawladda Soomaaliyeed maadaama ay kaliya ka tahayn dadka Soomaaliyeed ay wax ku fahamsaa maxaa jira dadka Soomaaliyeed inay Hargeysa tagaan baan rabnaa wadakooda ku soo noqdaan garow yimaadaan baan rabnaa meesha rabaan inay ka degaan baan rabnaa si xor ah inay uga degaan baan rabnaa haddana in shuruucdii dalka la raacaan rabnaa intaas marka xikmad aan rabnaa iyo min bayni fartin wa damani labanan khaalisan inaan kasoo dhex saarno marka wax xiriir ah hadda kaga yimid dhinaca iyo Somaliland ee arrintan ku saabsan waa hadday bilaabatay I hope inaan karka oo aada markuu bilowdo wixii ka dambeeyay oo si wada hadii la yiraahdo way shirkadii diyaaradeed ee jabisa ma jirtaa wax dawladdu go'aan ka qaadanayso e-visa ee soo qaado qof aan haysan shuruucda u taalaataas shuruuc baan leenahay hay'adaheeda aan fulinay insha Allah way su'aalahan way dhamaan waqtiga aad uu noogu yar yahay qaybtan waa hilmaanay adinka waa joogtaan gudoomiyaha iyo way laba qof aan rabnaa inaan ku gabagabeyno sideen rabnaa inaan idin dooran siino labada qofood horta ninka inaan microphone siinaa rabnaa marka koowaad oo maanta hore aan ku celcelinahay ninka iyo waan soo gaarsiin doonaa أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن رئيس الوزراء وكارها لقلنا دي تلف ميكروفون كسي قابدرنا كل هذه كله وحاها
gudoomiyihii dhalinyarada degmada Wadajir waxaa aad aan ugu shaqeeyay doorashadii diiwaangelinta degmada Wadajir waxay qayb ka ahayd degmooyinka ugu horeeya oo number 1 ka galay diiwaangelinta waxaan u sharxanahay golaha deegaanka ee degmadeeda mudane ra'iisul wasaare noo ku hadlay afka dhalinyarada Wadajir iyo kan gobolka Banaadir waxay aad u jeclaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed inay doortaan madaxweynahooda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya muddo 30 sano kadib ayadoo dad gaar ah loo daneynayo ayaa loo tanaasulay in madaxweynuhu shacabku dooran weli waxaan haysanaa haddaan dhalinyarada gobolka Banaadir Jaanis oo aan ku doorano golaha deegaanka iyo kan gobolka iyo xildhibaanada wakiilada qaranka haddaba mudane ra'iisul wasaare ma laga yaabaa iyadoo dad gaar ah ma laga yaabaa inta badan in aad uga hiilisaan inta yar oo aad ka baxdaan rajadeena noo soo hartay aad u maas hal qof aan siinaynaa halka qofna dabcan dhamaantiin waa wada rabtiin waxaan rabnaa gabaraan ka dhigaynaa halka qof raalli ahaada gudoomiye waa cudur daaranaynaa hay waayahay gabdhaha laba ayaan ka dhignay u ogolaada iyo gabadhaasaan kusoo xireynaa macallin waa ka cudur daaranaynaa raalliho maan hay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنت منود رئيس الوزراء رال هذا بوقي رئيس عشاء أن دقيسن هاي سؤال هاي فرصة للوسي ما أنت هنا صهر فديسنا سؤال قواوي حيتهاي حكومة الفدرال حكومة دنقرة وحاتر هذا كنت يكون شرعية الأنسحية محوكة مكجرة محل ده شرعية اسمه كمذا حقوق هواينك شقالها هذه نقطة شقالها الدولة يكوي هي أذا جارك يكوي بريفتك مكجران إن سلوه بيو قبلها تعدي جلوجست يحد جذب كل جزء مايو سيد الله إلى علينها iyo sharci cadaalad meheli doonaan gabdhaha xafiiska dawladda ka shaqeeya aad u maasanta ay gabadha inaan siino mase gabdhahan horaan siino maamada aan siino raalaad way dhamaantii waa maasantii waa soo gabagabaynaynaa idinkoo raalliya haye si gaba رئيسل وزراء قرنك والسلام يا رئيسل وزراء واد محسنتay waqtigaada qaaliga noo hurtay gabar baa masuul roo haysatay anigana rئيسل وزراء qaranka hays bishii 2024 bishii 12 baan taariikh 5 baan CV-geeda u geystay asaga caawa meel ku sheegi doon taas waa tu maxaa kaaga san buudooyinka baar dheere iyo hal su'aal ku ogolaan kaliya taasaan qaadayna ilaa dhamaadka haddii aana la joogtay aragtidaada qaybta hoose kaga soo dhiibo hadalka ra-iisul wasaaraha ka soo baxay ee gabdhahaas ugu saabsan maxaad adigu tala ahaan soo jeedinaysaa halkan ku sabiir muuqaalka sii faafi like share ku sabiir macluumaad iyo warar saa u heshay